Assalaamu calaykum kusoo dhawaada janaalkayga Xanaan Show. Maanta waxaa rabaa inaan ila wadaago qiso ka dhacday dalka Kuuriyada Waqooyi. Gabar ku xirnayd xabsi oo la baxsatay askarigii ilaalinayay. Jiyoon wuxuu saqday dhaxal hurdada ka toosiyay Kim, wuxuuna u kaxeeyay jidka uu ku baxsan lahaa ee uu qorsheeyay. Habeen ka hor ayuu sii diyaarsaday 2 boorso oo ku diyaarsaday dharkii iyo cunadii ay u baahnaayeen. Wuxuu sidoo kale diyaarsaday midi iyo sun. Fursad kale ma uusan helin, wuxuuna sitaa qori. Kim ayaa isku dayday inay ka dhaadhiciso inuu iska dhigo, laakiin wuu ku adkaystay inuu qaato qorigiisa. Waan ogaa inaan fursad haystay habeenkaas oo kaliya. Haddaanan habeenkaas sidaas samayn lahayn, waa la i qaban lahaa, waana la i dili lahaa, ayuu yiri Jiyoon oo 26 jir ah. Hadday isku dayaan inay baxsashada iga hor istaagaan, waxaan qorsheynayay in aan xabado ku rido, orodna aan sii daayo. Haddii aan orodka uga baxsan waayana, waxa ii qorsheysneed inaan isdilo. Haddii arrimahaasi oo dhan ii suurtageli waayaanne, waxaan qorsheeyay inaan midi iskaliyo ama sunta aan si tacabo. Mar haddaan dhimasho u sii diyaar garoobay, wax cabsi ah ma jiraan, ayuu yiri Jiyoon. Labaduba dabaqa ayay ka boodeen, waxayna ku soo dhaceen goob bannaan ah oo ay maxaabiistu ku jimicsadaan. Hortooda waxaa ahaa darbiga xabsiga oo ay ka bixi lahaayeen, balse waxay aad uga cabsanayeen ayda ay waardiyaasha adeegsadaan. Haddii aysan xitaa cidna arag oo ay ilaalada dayrka xabsiga ka baxsadaan, waxaa haddana laga sugayaa ciidamada dusha sare ee xabsiga gaaf wareegaya iyo in ay ku gudbaan webiga Tumiin, waxayna ku xirnayd xorriyadooda. Laakiin waxa ay damacsanaayeen ayaa ku qaaday in ay u bareeraan khatar kasta. Kim waxaa laga soo qaaday xabsiga dhexe, waxaana loo bedelay xabsi ka adag midkii ay ku xirnayd. Labaduba way ogaayeen inay adag tahay in xabsigaasi ay nolol uga baxaan. Inta badan maxbuuska iyo ilaaladiisu saaxiibtinimo ma dhexmari karto. Maxbuuska iyo ilaaladiisa waxay kulmeen 2 bilood ka hor oo ku beegneed May 2019. Jiyoon wuxuu ka mid ahaa ilaalada ka shaqeysa xabsiga Onsung oo ku yaala Kuuriyada Waqooyi. Isaga iyo saaxiibadiis waxay Kim iyo dhowr maxbuus oo kale ku ilaalinayeen xabsigaasi maalin iyo habeenba, waxayna dhammaantood ahaayeen xukun sugayaal. Kim waxay qabatay indhaha Jiyoon, waxayna ku labisneyd dhar qurux badan iyo muuqaalkeeda oo cajiib ahaa. Kim waxay ahayd shaqadeeda waxa loo yaqaano dalaal. Waxay gacan ka geysan jirtay furidda kanaalada si ay uga gudbaan dadka baxsadka ah iyo qoysaska qaxaya. Taas waxay ahayd caawinta dadka aan awoodin iyo la hadallada dadkii baxsaday. Taasi waxay ahayd shaqada dhaqaalaha fiican ee ka helaan dadka nolosha fiican ku nool ee Kuuriyada Waqooyi. Kim waxay shaqadaas ku heli jirtay lacag horumaris oo gaaraysa 30%, celcelis ahaana gaaraysa 2.8 milyan oo u dhiganta lacagta Kuuriyada Waqooyi. Marka la eego xaaladda Kim iyo Jiyoon, wax badan kalama duwana. Jiyoon wuxuu muddo 10 sano ah uu ahaa askari ka tirsan maamulka kala taliska ee Kuuriyada Waqooyi uu hogaamiyo Kim Jong-un. Kim waxay aragtideedu isbedeshay markii lagu xukumay xabsiga. Xukunkana ma ahayn kii ugu horeeyay oo lagu xukumo, balse xabsiga labaad ee la dhigay. Sida loola dhaqmay ayaa ka duwanaa xabsigii hore u soo gashay. Haddii ay xabsigan nolol kaga badbaado, xataa waxay garwaaqsatay inay howsheedii dalaalnimo ay ku shaqaysanaysay ku noqoto mar kale la soo xiri doono. Waa sababta ku kaliftay inay ku dhaqaaqdo arrinta khatarteeda leh ee baxsashada. Kim waxaa markii ugu horeysay loo soo xiray in ay ka shaqaynaysay howl dalaalnimo oo dadka khatar badan u leh, iyada oo lagu eedeeyay inay dadka Kuuriyada Waqooyi ka soo jeedo ay ka gudbiso xadka Shiinaha. Wadadaasi oo halka ay Jiyoon iyo Kim doonayaan inay ka gudbaan. Shaqooyinka noocan ah ma qaban kartid mar haddaanan qofku dhex lahayn militariga, ayay tiri. Askarta waxay siin jirtay laaluush si ay dhinacyada uga eegaan, waxayna u sheegtay 6 sano ee la soo dhaafay inay howshaasi guulo badan ka gaartay oo dadka ay gudbisay ay ka qaadan jirtay inta u dhaxaysa $1,433 ilaa iyo $2,149, taasoo ka dhigan haddaad hal qof gudbiso oo aad lacagtaasi hesho inay lacagtaasi u dhiganto celcelis ahaan dakhliga qofka Kuuriyada Waqooyi uu ku noolaanayo sanadkii. Waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Markay xabsigaasi soo dhammaysatana, shaqadii dalaalnimada ee adkaa khatarta badneed ayay dib ugu laabatay. Taleefanada gacanta ee Kuuriyada Waqooyi waxaa ka xiran
khadka uu qofka dibadda ku wici lahaa. Mar kale Kim waxaa lagu soo eedeeyey inay taleefano dibadda ah ay Shiinaha kula xiriirtay, taleefanadaasi ugu adeegsanaysay dadka ay Shiinaha ku tahriibinaysay. Waxaan u sheegay askarta isoo qabatay inay isii daayaan, si kastaba waan u bariyey, lacagtan doontaan waa idin siinayaa ayaan ku idhi, balse way iga diideen. Si aad Kuuriyada Waqooyi ugu noolaato waxaad u baahan tahay lacag. Xataa imtixaanka kama dambaysta ee aad u gelaysid jaamacadda si dhibco fiican laguu siiyo waa inaad macallimiinta jaamacadda aad laaluush siisaa, ayuu yiri Jiyon. Waxaan garanayaa nin ka qalin jebiyey jaamacadda Kim Sung oo ugu sumcadda badan dalkaasi oo ka mid ahaa ardayda dhibcaha fiican ku qalin jebiyey oo noloshiisa ku soo gabagabowday inuu hilib bannaanada ku iibiyo, ayuu yiri. Shacabka dalka Kuuriyada Waqooyi ku nool noloshooda ayay la daalaadhacayaan. Xiriirka ka dhexeeya maxbuuska iyo ilaaladiisa ayaa inta badan ah mid aanan loo baran. Maxaabiista xataa looma ogola inay il buuxda ku fiiriyaan askarta ilaalinaysa, ayuu yiri Jiyon. Sida cirka iyo dhulka ay u kala fog yihiin ayay u kala sarreeyaan. Kaamirooyin ayaa meel walba ku xiran, marka maxbuusku wuxuu si fudud ula socon karaa qofka ku dhow isaga oo la soconaya dhaqdhaqaaqa kaamirada. Gabadha maxbuuska ah daryeel gaar ah ayaa siin jiray, ayuu yiri. Kim waxaa lagu xukumay 5 sano oo xarig ah, balse xabsiga oo aad uga cabsi badan waxay ku jirtay 3 bilood. Rajabeel ayay igu dhacday inaan isdilo, xataa marar badan ayaan ku fakeray, mar walibana waan oon jiray, ayay tiri. Markii aad gasho xabsiga waxaa lagaala noqonayaa muwaadinimada, ayuu yiri Jiyon. Adiga wixii markaa ka dambeeyey bini aadam maba tihid, xayawaanka xataa waad ka sii liidataa. Inaan ku caawiyo ayaan doonayaa walaashay, haddii kale xabsigan ayaad ku dhimanaysaa. Waddada keliya aan kugu badbaadin karana waxay tahay inaan xabsigan kaa saaro, ayuu yiri. Balse si la mid ah muwaadiniinta badan oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay waxaa la baray inaysan cidna ku kalsoonaan. Waxaan u malaynayay inuu khiyaamo ila damacsan yahay. Hadalkiisa waan ka soo hori jeestay, waxaan ku idhi, mabasaas baa tahay, maxaad ka faa'iidaysaa inaad ibasaasto iyo inaad nafteyda halis geliso? Balse wuxuu igu yidhi, xaalku sidaad mooday maaha. Wuxuuna ii sheegay inuu doonayo inuu xabsigan iga saaro oo ila baxsado ina geeyo dalka Kuuriyada Koonfureed. Kim waxay bilowday inay ku kalsoonaato iyadoo haddana cabsi aad u badan dareemaysay. Wadnahayga si waali ayuu u garaacmayay, ayay tiri Kim. Weli taariikhda Kuuriyada Waqooyi kama dhicin inay maxbuus ilaaladiisa isla baxsadaan, ayay tiri. 12kii bishii Julaay ee kal hore ayuu Jiyon ogaaday in la joogo xilligii munaasabka ahaa. Kim waxaa loo kaxeeyey qayb gaar ah. Ninkii Jiyon madaxa u ahaana habeenka gurigiisa ayuu aaday oo xabsiga ma joogin. Annaga oo madowga ka faa'iidaysanayna waxaan ka soo boodnay dabaqa dayrka, waxaana soo dhaafnay webiga dabaal ayaana kaga gudubnay. Kim jirkeeda aad ayuu daciif u ahaa oo xabsiga ayay bilooyinkii ku jirtay ayay aad ugu daciiftay. Webiga markaan si nabad ah ku gaarnay waxaan aragnay iftiin noo soo jira wax ka yar 50 mitir, waxaana iftiinkaasu ka imaanayay ciidamada ilaalada xadka. Meel ayaan ku dhuumanay si aan hadalkooda u dhageysano. Waxaan ogaanay inay yihiin ciidamada isbedelaya, ayuu yiri Jiyon. Wax yar ayaan halkaas joognay 30 daqiiqo kadib markii aan shanqar weynay ayaan dhanka webiga aadnay. Kadib aniga waan dambaashay, balse Kim dabaal ma garanaynin. Jiyon gacan qorigiisa ayuu ku qabsaday gacanna Kim si uu webigaasi tumeer uga gudbaan. Markii aan bartamaha webiga gaarnay ayaan arkay biyihii oo madaxayga ka sara maray oo iliqay, ayuu yiri Kim. Biyihii ayaan quustay, mana awoodin inaan indhaha kala qaado. Kim waxay Jiyon ka baryeysay inay dib u laabtaan. Waxaan u sheegay haddii aan dib u noqono waan dhimanaynaa, kolba haddaan dhimanayno halkan aan ku dhimanno. Balse waxaan rajo beelay, waxaana ku fikiray, ma sidaanaan u dhimanaynaa, ma halkan ayay wax waliba ku dhammaadeen. Ugu dambeyn Jiyon lugihiisa ayaa dhulka taabtay. Webiga ayaan uga baxnay, waxaana nabad ku gaarnay xadka Shiinaha, walow xadkaasi laftiisa ammaan ahayn. 3 maalmood markii aan duurka ku dhuumaalaysanay waxaan la kulanay dad deegaanka oo nagu caawiyey taleefan si aan u wacno dalaaliin naga caawiya sidii aan xadka uga talaabi lahayn. Balse dalaalkii wuxuu noo sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi heegan la geliyey si ay noo soo qabtaan askarta Shiinaha
ay gacan siinayaan. Falkan ay ku dhaqaaqeen Kim iyo Jeon ayaa noqonaya mid si weyn u waxyeeleeyay qoysaskooda ay kaga soo tageen Kuuriyada Waqooyi, iyagoo ay dhici karto in su'aalo badan laga weydiinayo, dhibaato kalena ay dowladda kala kulmaan. Waxaan dareemay inaan dambiile ahay maadaama aan ninkayga iyo carruurtaydaba ka soo tegay. qalbijabka aad u weyn ayaa igu dhacay ayay tiri Kim. Jeon sida oo kale wuxuu dareemay dareenka la mid ah midka Jim, wuxuuna bilaabay inuu hees muruga isaga baabi'inayo qaado. Markii ay gaareen halkii ay u socdeen, waxay qorsheynayeen inay aadaan Mareykanka oo waxay bedeleen qorshihii ahaa Kuuriyada Koonfureed. Mareykanka Iraq ayuu Jeon ku baryay Kim, madaxa ayay lushay iyadoo u muujinaysa dadnimadeeda. Kalsooni kuma qabo maadaama aan af Ingiriiska ku hadlin, waan cabsaday. Jeon wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo isaga oo u sheegay hadday israacaan inay af Ingiriiska wada baranayaan. Meel kastoo aad tagto ha ilaawin ayay Kim si degan igu tiri, balse labaduba way ku faraxsan yihiin inay ka soo baxsadaan nidaamkii Kuuriyada Waqooyi ee dulmiga ku dhisnaa. Kim waxay sheegtay inaan weligeed loo ogolaan xitaa inay u safarto caasimadda dalka ee Pyongyang. Markaan dib u milicsano halkan ka imid, waxaan labadeennaba ku noolayn xabsi, mana awoodin meesha aan rabno inaan aadno iyo waxa aan doonayno inaan sameyno. Indhaha muwaadiniin Kuuriyada Waqooyi waxma ma arkaan, dhagahoodana waxma maqlaan, afkoodana kuma hadlaan, ayuu yiri Jeon. Qisadeena maanta halkaas ayay ku eg tahay.